السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhamaantiin meel walba aad joogtiin. waxaan rabnaa halka inaan kugu soo gudbiyo falanqeynta suuqa forex trading. saa hore wala socoteen barteena YouTube-ka. waxaa la yiraahdaa maalinka isniinta waxaan idin soo gelin jiray falanqeyn waliba isniinta hadda u dambeysay. soo marka waxaan sidoo kale kuu sheegi rabaa kula wadaagi rabaa inaad Telegram qaas ayaan leenahay inaad halkaas Telegramka aad timaadid. waxaa ku qoran Somali Online Opportunities linkiga hoostiisa video-gana ku soo dhigaya oo uga soo biiri kartaa. sidoo kale ilaahay inaad halkan subscribe saarto aad muuqaalka daawanayso aad share-na dhahdo like-na saarto waa mahadsantiin dhamaantiin. waxaan rabaa halkan inaan ka dibgeeyo waxa la yiraahdo lacagta doolarka iyo jihadeeda iyo dhowrka tirido suuqa ka banaan. aad sidaa ogtiinba last week suuqa fursado badan ma lahayn laakiin wuxuu lahaa dhowr tirido oo maxaa la yiraahdaa trendiga hoose waa iska jirjireen. soo qofkii marka suuqa asiga fahansan wuxuu sameyn karaa trendiga sirarka waa uu ka faa'iideysan karaa. laakiin qof bilow ah waa ku adkaanaysa sababtoo trendigii weyn asuu fahminin kii hoose inuu ka daba yimaado oo dhaw waxbaan ka cayrinaya sababtoo riskigeeday wadataa. laakiin qofkii fahansan already waxaa waaye afartoo trade iyo shantoo trade waa iska heli karay oo 30 daqiiqo iyo 15 minutes iyo wixii ka hooseeya ahaa. anigu warta tradedaas waxaa la yiraahdaa qof ma loo soo diri karo sababtoo mararka qaar intaad habeenayso stop loss-ki TB-ga ayuu hore horta ka dhaqaaqaya. laakiin waxaa waaye qofku waa la socodsiin kartaa. marka insha Allah halkaas Telegramka isku qaaya keena Somali Online Opportunities baa ku qoran linkiga hoostiisana waa idin soo dhigi doonaa madoo leedmo. waa mahadsantiin mar kale haddii ayna maanta casharkeena ku sii socono. DXY sida idin sheegay last week oo barteen Telegram baan ku soo diray sorry. forward-keeda horta waa kana wali waa jira waa nool yahay forward-kii lama jebinin. haygiisii waa kana lower low-giina waa kana laakiin waxaan leeyahay waxa ku dhex beermaan forward-kaas una hawar trendi oo up u socda oo aad u jeedin higher low higher high hadda halka markii lagu soo noqdo ay noqon karto maxaa la yiraahdo potential one hour higher low. meeshan sababta aan sidaas idin leeyahay wax kale ma ahan shuruudaheeni ayay buuxisay sidaad u jeedin waxa u jeedin meeshan inay dhimayso tahay oo suuq kor meeshan uga kacay. sidoo kale waxa u jeedin opposition-ka kaas horjeeda in la cunay oo meeshan la jebiyay. kadib marka intaas yeeshay waxa u jeedaa in liquidity la sameeyay halkan liquidity markii la sameeyay u jeeday suuqa trendiga yaraa ayuu ku soo socday. waa kana meeshan ku soo bilowday waxa la yiraahdaa mitigation move-ka waxaan dhan mid baan uga soo hadlay. mitigation move-ki waa kana halkan waxa u jeedaa in dhaqaaq lagu jebiyay dhaqaaqan loogu dalmaro la jebiyay kadibna waa kana hadda meeshii lagu soo socdo kan hadda waxa aan sugnaa wax kale ma ahan isla maanta hadii aan lahayd meeshan waxa ka jira waa sameyn leen hore waa ka galaan laakiin isla maanta ma ahano suuqi ayaa ku xirmay meelahan ilaa xaro ee waxaan wax soo socday. soo marka one more time inaan 30 daqiiqo inta tagno ilaa haduu ku idmaayo aan sameyno wax la yiraahdo asagana aan sidoo kale loo macaamilo oo waxa u jeedin asagana higher high lower low lower high lower low kana hadda hoosta aan soo socdo tamo marka waxaan suugaynaa one more time halkaan la tago in wax yar saas loo kaco kadibna lagu soo noqdo tareedkaana sidaas ayuu active inuu ahaan doona. one hour-kaada markaas oo kale ku soo noqonaysa iyo 2 hour-kaada meesha markaan maxaa la yiraahdaa saadaalinaysid in suuqan uu jebiyo waa 4 hour-kan. waxaan la yiraahdaa TP-ga koowaad oo kale meeshan oo kale aad ka dhigan kartaa. kan labaadna waxaad target gareynaysaa waxa la yiraahdaa high-gan la jebiyo rabtaa in afkiisaas. kan saddexaad isaga waa in meeshan imbalance-ga kore la taga halkan. marka DXY sidaas ayaa ka macquul ah. marka USD waad uga faa'iideysan kartaa intii ay sameysay in lamida ay sameysay ayadana waa kana 4 hour-keedii high-gi iyo low-goosay waxaan u jeedaa kan wali lama jebinin iyadoo laakiin wax yar bay uga celi duwanto iyada meeshan lama jebinin. soo waxaan sugnaa waa in markuu dhaqaaqan halkan ka soo dhaqaaq oo horta markuu halkan jebiya
and then uu ku noqdaa meeshaan waxaa la yiraahdo isheeg uu ku noqdaa positionkii entryga laga heli lahaa. laakiin waxa ujeeday inuu qaydo si jibin uu iskaga noqday. marka rulkaadi way khilaafaysaa oo ma sameyn kartid sidaas. laakiin isaga haddaad si usii fiirisid 15 minuteska iyo maxaa la yiraahdaa 30 daqiiqo aad isagana trendigan yarka aad ku qiimeysid waxay noqonaysaa sheekadii scalpingka idin sheegayo kale oo 4 hour waxaa la 30 daqiiqo 15 oo kale. marka asagana gaarkiisaas oo la macaamili kartaa marka halkan la yimaado oo DX waa in isdhamaystirto adaayadana isdhamaystirto markaas waa sameyn kartaa sababtoo oo lacag bilcagsigeeda ku ayaa haysataa. trade-ka labaad oo kale in la wadaagayo waxaa waaye GBP USD iyada last week fursad yar baa ka jirtay laakiin fursad oo wuxuu ahaa stop loss-kooda uu xoogaa badinaa ilaa 48 camal bibs uu ku dhawaa 48 bibsne waa adag tahay yani qof inuu risk management ku sameeyo uu ku sameyn karaa already laakiin waa ku niyad jibinaysaa markaa bilowta inaad qaadato trade noocaas oo kale. waa kana niyadana waa kana 4 hourkii iyo sidii oo kale ahaa meeshaan laakiin waxaa ka jira 1 hour lower low lower high lower low and then lower low marka meeshaan ku jiray waxaa ujeedaa inuu sameysmay waxa la yiraahdo liquidity-gan marka uu sameysmay oo meeshaan la tagay waxa ujeedaa in dhaqaaq lagu soo jabiyay. dhaqaaqa markii lagu soo jabiyay meeshaan liquidity-gan oo halkaan ahayd trade-ku waa halkaan waa laga geli karaa. trade-ku waa halkaan waa laga geli karaa. 45 bibs buu ahaa laakiin faa'iideysa baneed anuu trade-ka marka hore waa galay halkaan ayaan uga aray 200 bibs buu ahaa. liquidity-gan dambe waan ka daba geenaa laakiin marka hore kan ayuu midkii saxda ahaa oo jiray meeshii la jibiyeyna waxay ahayd meeshaan ayay ahayd halkaan ayay ahayd. marka halkaan la jibiyay last candle-kii lagu soo noqdayna waa kana halkaan ayaa ka galay 200 bibs ayaa dhacday laakiin isla markii kadibna waxaa dhacay trade-ka hadda markuu sidaas sameeyey again ayuu fursadii soo nooleeyey oo waxaa jirto markaa intaas ka heshay waa iskaga hari kartay kadib halkaan ayaa liquidity noqotay meeshaan ayuu ahayd meeshuu handala hadda uu jibiyey already waatan and then kan ayaa sidii loo macaamilin halkaas markuu tago in one more time afka hore lasoo jabiyo lagu noqdo kadib sidaas ayaa haddana ka sugeynaa uga fadhinaa meeshaan ayaana meesha aan ka geli doono saacadaha soo haddana daalay insha allah isagana oo kusoo diri doonaa barteena telegramka si aad ula socotin marka halkaasna ku biir oo isha ku hay waa mahadsantihiin. trade-ka kale oo rabinaa in ka dabageeyo waxaa waaye waa GBP CHF iyada hadda sidaan rabnaa macquul inay noqotay isla fiirinayna. waxaad sameyn kartaa si horta iyadoo trade-kan waa trade yar oo lower tone frame-ka ah waxaa ujeedaa suuqu inuu kii ku jiro maxaa la yiraahdaa xaalad aan korna ahayn hoosan ahayn laakiin waxaa wax ku qiimeynayna waxaa waaye waa lower time frame-ka 45 minutes oo kale aad imaan kartaa 45 oo kale markaa imaatid meeshaan waxaa ujeeda inuu halkaana keligiis trend ahaa intana keligiis trend ahaa intana keligiis trend uu yahay so marka mid walba gaarkiisa ayaad ula macaamili kartaa. intana waxaa ujeedaa inuu keligiis trend ahaa marka mid walba waxaa sameyn kartaa keligiis ayaa gaar ula macaamili kartaa. si kalena ulama macaamileysa saan ayaad sameyn kartaa maadaama kana keligiis trend ahaa kana keligiis trend ahaa kana keligiis trend ahaa
waxaan u baahanahay kan hadda la marayo kii ka horreeyo ahaa kan sida loo jabiyay inaan helno. waa kana waxaa ujeedeen inuu halkan 1 hour uu yahay, halkan 1 hour lower low yahay, sidoo kale lower low kasii hooseey kaas yahay, kana nasiinadii tahay, kana kii kasii hooseey uu yahay, kana nasiinadii kii u dambeeyay. and then waxaa ujeedaa trendigi in lasii jibiyay asagana oo laga dulmaray oo meeshii ahayd halkan in la jibiyay oo uu sii socday. waxaa la yiraahdo trendigi 1 hour-ka 45-ka lakana mid kasii horeeya ayaa yimid oo ah halkan, kana mid kasii horeeya ayaa yimid. and then intaas markaan helnay sidii aan ula macaamilaynay 1 hour-ka iyo wixii kale shuruudihii kale waa ka sameyn yihiin ayaa handale waxaa sameynaynaa waxa la yiraahdo demand zone-kan inaan helno. demand zone-kan inaan helno ujeedin meeshaan inay demand zone tahay, inay demand zone tahay ilaa hadduu ku idmaayo. halkan inay tahay waxaa ujeedaa isheeg liquidity oo bottom ah. and then trendiga marku uu sidan yahay waxaa sugtaa waa in meeshaan la imaado. waa meesha hadda afka lagu soo haayo oo candlekaada kugu beelan oo dhimaanka ah. and then markii halkan la imaado waxaan sugnaa waa in la jabiyaa high ugu hooseeyo ugu koreeyo oo markaas uu ka yimid oo ah kan, and then uu kusoo noqdaa kadibna trendiga sidaas uu ahaa. trade-kan isaga waa trade waxaa la yidhaha dhadhow oo 45 iyo 30 daqiiqo ah, isla saacadaha soo socdo inuu activate gareysmaa laga yaabaa. marka insha allah isagana waxaan kusoo diraynaa barteena telegramka. ama mahadsantiin. waxaa kaloo jiro trade kale sidiisoo kale scalping ah lower time frame-ka cat JPY iyadoo laakiin waxay ugu duwan tahay waa trend 1 hour official ay haysataa. waa kan higher high, higher low, higher high. iyadoo waa trend maxaa la yiraahdaa saxan oo dhisan oo jiro. marka iyadoo waa ka maxaa la yiraahdaa amaan fiican tahay. sidaan oo kale markay jirto waxaa sameynaysaa shuruudahaadii kale ayaa raadinaysaa. ilaa hadduu ku idmaa demand zone-kii baad raadinaysaa. demand zone waxaad uga jeedaa 30 daqiiqo aad markaas si fiican meeshaan kale uga arki weydid. meeshaan waaba kana kan demand zone ayaa ku jira. dhimaankan halkan markuu ku jira ujeedid waxaad raadinaysaa liquidity halkan inuu ahaadana waa ka raadinaysaa. hadda halkan ka weydin kuwii u dambeeyay suuqa ayaad ka raadinaysaa. so hadda halkan ayaa uga jeednaa. allahumma salli calaa maxamed. liquidity oo bottom ah. and then waxaad sugaysaa marka inuu suuqa halkan yimid sidii la rabay. so hal mar hadda waxaa sugaynaa inuu sidaan u kaco oo halkan gidaarkan yar noo jabiyo. kadib gidaarkaas markuu jabiyo uu soo noqdo uu kor aado. asagana waa trade-ka saacadahan soo socda jiro oo lower time frame-ka ah. marka labadana waa lower time frame, labana waa waxaa la yiraahdaa waa 1 hour iyo 2 hour oo higher time frame-ka xisaabsan yihiin. so labadaas 1 hour-kan xisaabsan ayaguna waa dhow yihiin oo GBP USD USD JBP CHF iyo CAD JPY waa dhow yihiin. so marka insha allah afartaas trade ayaa ah trade ugu macquulsan. barteena waxaa la yiraahdaa telegramkuna waa kusoo diraynaa halkaasna kala socda. waa mahadsantiin insha allah. sidoo kale waxaan rabaa inaan ka dabageeyo inaan muuqaal kale oo aan rabaa inaan ka dabageeyo oo yahay maxaa la yiraahdo sida looga faa'iideysto waxaa la yiraahdaa newskan shaqaawe jimcada soo socda oo ah employment change-ga iyo unemployment rate-ka oo USD iyo CAD ka soo baxaya sida looga faa'iideysto. oo yani as ahaan inaad horta newska barato waa sheeko keligeed gaar ah
insha allah muuqaalana waa kasoo wadaa. laakiin inaad markaas tradeeka jiro oo kale aad ku bislaysatid oo kale aad markaas oo kale aad ku gashid oo kale insha allah iyadana this week dhexdiisa ayaan rabaa inaan ka dabageeyo. insha allah waa idiin soo wadaa maalinka talaadada mise beri oo kale mise arbacada oo kale aan idiin soo dhigi doonaa si aad jimcada oo iskugu diyaarisidooda aad practical ugu sii samaysidooda uga faa'iidaysan kartid. insha allah intaan muuqaalkeena xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. ha ilaawin inaad subscribe saarto. aad waa mahadsantahay.